لما أنت واعد السلامي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. رب توكلنا على الله وكفى بالله وكيلا حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما أنت واعد السلام سلامي ويلكا عبرت وأي سقاسة لما أنت وحيران أردنا واعد وذا السلام إيه الكيبات وذوتين أنت إن ابن الله يسكن قاضي إلهي بان إذا كم كان halkaa waxaan ka salaamay يا فنانين هالكا إيه استبوت لان قاضي سنة لما أنتوا والسلام يا كل جود ووضع شعر هاي وفنانين تودنك وفنانين قرن أيقنا السلام بينها وذا الصامرين يا بدلان shacabka بدلان doorashada u dareeray gul iyo gobonnimaan idin leeyahay siciidani taariikhda ku xusaysa qof walba maalin bay taariikhdu dhigtay taariikhda ku xusaysa Puntland intaas oo madaxa soo martay ninkii waxa tahay ama laga raayay ama ha raayay taariikhda baaldahaba ka galay baatay aniga kulligiin idin ma kala jecel wiilashaydi baa tihiin anigu labsadayda deegaanka barbaan ku leeyahay waa ka soo sharxanahay ya hadii cayaar ma baash maxaa soo haray kii soo baxaba waa iikayga waa la shaqeynaya midaan si qaasi ula jiro iyo midaan kan ay ma jirto laakiin siciidani waxaan ku taageeraya oo aan garab iyo cod buuxda aan ku siinaya geesnimada uu u bareeray gul iyo gobonnimaan ku leeyahay siciidaniyo meel kasto aad joogtid gul iyo gobonnimaan ku rajaynaya inta aan ka maqanaana ducada kugu xoojinay saa kugu soo firdhinay adawgu inay ka naxaan meeshay adiga kugu arkaan ayagana loodi ay noqdaan adiguna libaaxi Puntland qof iyo cod doorasho waa inay u dareertaa Soomaali weyn oo dhanna waa inay qof iyo cod u dareertaa maamul xaafadeedyadu waa inay qof iyo cod noo daadajiyaan dawlad meesha ma joogtay waa inaan gabigeen aan doorasho wada galnaa ma rabno oday dambe oo nagu fariista abar dambe oo igu fariisatana ma rabno waxaan u soo jeesanayaa shacabka galmudug caawa dariskiina weeye waa dad walaalihiina waa dad walaalaheena kulligeen waa wada dhalana hal diyaani ee baan wadanay kan Puntland degan iyo kan gaalkacyo gadigeeda kala degan labada gaalkacyood waa hal gaalkacyo labada dhinacba kuwa degan waa walaalo waana dad wada dhashay kulligeena waa wada dhalanay maanta Puntland bay ka bilaabatay shala ayadu maamul goboleed ma keento saaka doorasho qof iyo codama loo dareeray saaka waxa loo fadhiyaa galmudug sacaawa deynaya galmuran markaa galmuran leeyahay waa markaan soo noqon doono qoor mid baa halkaan uga sheegaya iyo wiilka ku xigay ciid mid baan idin sheegaya in dhafara ka gelin iyo subax dambe la isku habsada waa la diiday meel walba warqadaan dhigaynaa meel walba warqadaan geenaynaa oo aan u geenaynaa dalkeena doorasho qof iyo cod inuu galo oday dambe igu fariistana saaka waa diida habar dambe igu fariisata oo ilmaheeda iyo gurigeeda ka naxdoon cid kale ka naxin iyo nin gurigiisa iyo ilmihiisa kaliya ka naxana waa la diida maxaa la rabaa mid ay Soomaali weyn oo dhan inta u damqanaysa sanduuq bartaa loo dhigaa la rabaa kulligeen midka jooga caawa cirifka ugu dambeeya ee koonfurta iyo midka ugu dambeeya cirifka ee koona waxaan iloobay hilmaan hadalku ma jira waxaan iloobay dadka isdilaya ee walaalaha ah ee wada dhashay ee kugu dhimay oo ka dhimay ah faataxada intii naas u mara inuu ilaahay u soo diro kulliga Soomaali hadana waa isku eegeynay inuu ilaahay u soo diro malaa'igiisa u soo diro oo laytul qadarka la sheego u soo diro oo ilaahay waxaan ka barina ummad ilaahay ah oo ilaahay awood u siiyay inta u soo diro dadkaas walaalaha inuu ilaahay ummad u soo diraan ilaahay ka barin kala celi weyn oo annaga dhan waa isku daawanayna gabigeen waa wada daawanayna inuu dadkaasi waa kugu dhimay oo waa ka dhimay oo waa garbeen waa labadaydii garbood mid aan u iliyo iyo mid aan ka iliyo caawa ma garan karayo because wiil Soomaaliyeed oo dhimanayo oo wuxuu ku dhimanaya alla arag baa caawa aan u jeedaa gabigeen faataxada aan u marno inuu ilaahay u soo diro nasri khayr qaba awad khayr qaba inuu ilaahay cirka inta ka keeno u soo adeejiyaan ilaahay weydiisan malaa'iga xataa iska dhigta bilow aadan inta iska dhigta oo kala dabqaada inuu ilaahay soo diraan ilaahay ka barin taasi waa taas ciidow waxa maqaala igu ah intii habar baarlamaanka ku jirta caawa galmudug bay xaadir ku yihiin kulligood saasay wada fardada leeyihiin waad u jeedaan Puntland ku dayo Puntland ku dayo way tribka dambe waa ku dayo Puntland ku dayo siday doorashada u galeen ma ila socotaan waa in gabigeen doorasho aan wada aadno gabigeen waa inaan doorasho dalkaani u aado habar gurigeeda ka naxaysa
oday gurigiisii ilmihiisii kaliya ka naxaya oday aan dad waxba u qabanaynin habar aan cidna wax u qabanaynin horay noo soo xakaariyeen 20 iyo dhowr sanay fadhiyaan caawa tuulo mid dhistayna kuma jirto oday hal tuulo dhisay kuma jiro mid walbana wuxuu u milqsanayaa doorasho dadban galmudug waa inay inta fadhiga ka kacada xaliimo yaray doorasho qof iyo cod aadadajis keentaa aduguna waa inaan gebigan doorasho qof iyo cod aadna kan koonfur galbeed joogo inuu qof iyo cod aadaa kismaayo midka jooga waa inuu qof iyo cod aadaa midka jooga ii sheeg hirshabeelle waa inuu qof iyo cod aadaa gebigood markii la isku soo duba mid dan dadeed ku maqan lama arko mid walba gurigiisa iyo awlaadiisa ku maqan odagii talada dalka ugu sareeyay baa garbihiisa waxaa socda kuwuu asaga dhalay iyo kuwuu asaga qabay dowladnimo halkaasay fashil ku noqotay beesha caalamka la sheegayo haddii caalamkaba calankeenaas buluuga ah uu ka mid yahay doorasho dadban waa diidnay habar damboo igu fariisato oo meelay ka socotay meelay u socoto la garan waayo waa la diiday maxaan rabnaa doorasho qof iyo cod inaa loo daadajiyaan rabnaa caawa waxaa igu maqaala ah inay joogaan maamul xaafadeedyadii 4 nin oo kale waa joogaan caawa xamar bay xaadir ku yihiin waxaana loo shirayaa waxay tahay doorasho dadban see ku diidna dalku adinka kaligiin maliyidin annaga soomaaliyaa leh ummadda soomaaliyadoo daafaha dunida joogtaa leh dalka calankaas buluuga ahaa dalka wada leh waa wada leenahay waxaad dowlad ku tihiina shacab magaciisaad ku wadatiin aad ku wada shaqaysaa saakana waa idi diidnay waxaan doorasho qof iyo cod ahayn ma rabna anagu caawa cirif kasta ee soomaaliya aan ka tago cirif kasta ee aan soomaaliya ka tago waa gurigaygii waa ciidaydii waa calankaygii waa hoygaygii cid meel laga xigaaro ma jirto qof walba soomaali ah soomaali buu u yahay puntland saaka waa inaan cudud ku taageernaa oo caqli ku taageernaa oo maskax ku taageernaa oo fikirkeenna aan ku taageernaa oo shacabka puntland inaan dhiirigelino markaan ayaga inta dhiirigelino banaanka tubta ay saa u wada qaadaan qasban annaga baa lagu wadaya in doorashada la wada galo ama odayaaso ay isdhigdhigaan ama abruha ay isdhigdhigaan bal habartee wax qabata caaw hal habar ah oo wax qabata ma ii sheegi kartaan 25 sano ku fadhin cunugoodii waagaas ay dhalay baa ilmahoodii baa ilmagooda dhalaya mid walba siyaasadda wuxuu rabaa ku asaga dhalay inuu ku qaangaariyo geeyo caawa caqligu war 20 sano yaa idilaya 20 sano habar meelay ka socoto aan la aqoon oday meel ka socda aan la aqoon mid kale meel ka socda aan la aqoon intaasaa igu fariista saaka caqliguna waa ka koray subaxii hore ee aan jiifay saaka caqligu waa ka koray maxaan u kornay waxaan u kornay adeer dalka annagaa iskala doorasho qof iyo cod inaan aado qofkay rabaan shacabka soomaaliyeed ha doortaan xalay waxaan arkaya ciyaal jaamacadeed ciyaal arday ah yaa jaamacad bay ahay baa doorasho loo dhig فقي مدح كل يوم قلم ذو كسر فشل ما يبقى نحتاجنا دارش صندوق دارش ضد بوالد دي ذا فقيو والد دي ذا فقيو هذه قال لك قاعد دي ذي حسن كي بلدا حسن بلدا ولا قد دي ذي ما عنده ود عربي مركو كو الله يقص لسان يقص لي واصح بلدا حسن بلدا ولا قاعد دي ذي دارش ضد بن عقل وشرع والد دي ذي عيال ير بالون دقي ميل سناتيق كو السجر ربي بو عبكي وشوي عاو عدالد mid walba waa dhaaranaya mid walba waa ordaya wax allaale iyo waxay noo qabtaan caaw allan cid shay karta lama arko ayaga wadankii iyo dadkii u kala xirxiran yihiin mid walba ilmihiisii buu wadaa mid walba naagtiisii buu wadaa mid walba wuxuu wadaa walaashiis buu wadaa dalka dhammaaba waxay ka dhigan corruption keligood ayaga ay leeyihiin ciidda iyo calanka keligii ma liidin soomaali weyn oo dhan baa leh adeer doorashadan u dareerina puntland baa saakay la baxnaaninaya oo la tabantaabaya oo cudud iyo af lagu wada taageeraya soomaali inta caqliga iyo maskaxda lana puntland bay ku faylan tahay afarta oday ee caawa xamar xaadirka ku ah cid war idinka yeelaysa lama arko wax walba haddaad akhrisaan shacabaa beledweyne biyo ku qaada goodlaw oo ka hadlaya maaragteen NGO ee biyo waa lagu sii daynayaa dadka si ummadda jeebkeeda loo baarto heerkaasaan maraynaa caalamka waa nala yaabay safaaradihii waa idinka arkaya qunsuladii markii loo tagaa laleeyahay inta warqad loo dhibo waryaa shirka kama soo qayb geli kartid baadilka qaranka iyo calanka uu ku sugaya cid ku sugan male xasan bulda xasan bulda wiil bulda saaru qoslay waa fuure xasan bulda ya xasan bulda gabadhiisii baa wada oo naagti gabadhii wiilkiisii baa wada oo midii ina adeertiisayd baa wada xasan bulda waa dadka wadanka dhammaa wuxuu ka dhiga asiga keligiis
wasaaradda kalluumaysiga iyo wax saas mid cidaha iyagaa jooga wallahi wisan agtagi kana wiilkiisaa ku qoran oo shatiga dhiiba iyo billaah waryaa adna iscasil ilaahay baa deeq ka badan ku siinaye waxa beentaa oo lagugu magacaabayo iska casil afarta maamul xaafadeed doorasho qof iyo codaa la rabaa ciyaalkayagii ugandhaa lagu dilayaa kuwa xabsiyay galeen xasan buldhab jeebkiisa keliya inaysan safiiradu ogaan wuxuu qaadanayo buu jeebkiisa ugu shubtay cid ka yeelaysana xasan buldhab lama arka saaka waddan walba uu tago cid la xisaabtanta male baarlamaan la xisaabtamaan jooginin waa wada calooshood u shaqaystayaal ah duuflaalayaal wada ah waddanka doorasho qof iyo cod uma ogola adeer saakase waxaan u fadhinaa doorasho qof iyo cod ah hadalka mid hadduu yaa laba lagama dhigo waxaan u soo jeesanayaa oday cidaa iyaga ah oday cidaha iyaga ah hoy oday cidaha iyaga ah oo maalmahan social mediana ka qaylinayo ugaaska anigu ugaaska ku fogaan mayo ugaas ahaa ugaaska ku fogaan mayo waxaa la yidhi taladaan la ruugin taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa taladaan la ruugin oday ugaasoo waa lagu rafaadaa adigu ugaasa daata amba ugaasadii beelaha direed cayaar mood koofidaydii iyo go-ii shaalka ahaa waa iga maqanya meelo kalaan jiraa ugaasad baan aniguba ana ah mid baan kuu sheegaya maalin dhawaad waxaa igu maqaalaa oo qolo diri ii sheegtay inaad maxkamadda tagtay qaranka xeer ilaaliyaha qaranka inaad u tagtay inaad tiri shaqaaliyaalkan aad ka cayrisatay ilaahay baan idinku dhaarshay soomaali nebi maxamed ay inta i dhegaysanaysa iyo inta i dhegaysan doonta aydiid ilka xaraf wuxuu maxkamadda xeer ilaaliyaha haystay show maxamed siyaad barro oo nool buu joogay markii laga qaaday waxaa lagu bedelay axmed cali daahir baan u malaynayaa baa lagu bedelay haddaana qaldanayn ninkii waktigaa shaqaynayay beeshin buu galay wiilkiisii baa la keenay wiilkiisibaa wuxuu ku noqday konton jir ku noqday wiilkii uu dhalay buu u wadaa fiiriya markii la yidhi war qoladan shaqadan waa laga qaadayaa kuwo kaloo masaakiina oo aan waxba aysan alla keena la yirina wuxuu waa in kuwii lagu soo celiyaa adeer sidaad adiga rabtid baan kula dhigayaa kugu talax tegi mayo adeerkay baa tahay kuguma talax tegayo laakiin waxbaa kuu sheegayaa horaa waxaa loo yiri sadaqa sokeeya dhaafto waa sooma noqoto odaga adeerkay ah u geeya caawa reer xeraala u geeya odagii marna xagga usii ordayo marna xagga u ordayo caqliga adeerkayga caqliga admada inuu faaruqa ka aha u geeye adeer mid baan kuu sheegayaa kuwa adiga eheladaada ah ee magaca surre adiga kula wadaagaya baa shaqa la-aan ah kuwo kale oo cidda ah oo koonfur galbeed iyo kasoo jeedo faamiliga ah baa shaqa la-aan wada ah oo aqoon-yahano wada ah adeer meeshaad dhihi lahayd dadka inta la isku dhafo kuwaanu shalay hadday dhargeenay 50 sano 70 sano meeshaan ay ka shaqaynayeen adeer ha la geeyo kuwaan kale ha la geeyo meeshaad dhihi lahayd baa tiri waa in ayaga lagu soo celiyaa caqligaagu waa faaruq xuseen carab ciise iyo dinish ilaah xaqlaa lagu caabudaan ku dhaartay suray dad ugu necbiin ilaah iyo midka afka gaduudan oo inta afka gaduudan wuxuu ahaa xayir maareey anigu waa necbiin waa ogay anama jecli laakiin markii la idin qabsado saa la idin tuujiyana waa idin ka fujinaya waxba igama gelin inta ka horeysana anaa idin dhegadaynaya ma walaas jeclayn adina idima jeclidin anna idima jecla ad idinka because historygiin iyo newskiin oo dhan baan ogay adeer nimanka aad u socotid oo gadaal kaa riixaya waa nimanka noocaas baarlamaan bay gadaal ka riixayaan oo ay rabaan inay salabaan eegeeyaan ilaah xaqlaa lagu caabudaan ku dhaartay qof yaqaana loogu dhaartaa habeenkii saleebaan la keenaya gabadhii u dabaaldegtay baan boqol goor horena waa aan sheegay anigu hadafka aan leeyahay ilaahay inaan ka baqamoyo weligay aadana uma joojin wax allaaliya wax iga soo galaya iyo waxaan ku fulayaa la arag wallaahi baanan caawa qaarkoodna isku quurin caawa ma laleeya dowlad filla ku kaadi dad baa ka jira caawa xasan sheekh guriga aan jego guriga ku dhegan hadduu ku jiro ilaahow jahanabo iigu bishaaray inaanan ag tagin oo wallaahi ah bal waxaa weydiista inta iska daysaa wallaahi baanan ag tagin oo bilaahi inaanan ag tagin dowlad anigu macnaheeda waxaan u aqaanaa qofka inta qabkiisa cirka inta geeya dadka bulshada ay u siman tahay baan u aqaanaa kuwa iyagu annagay gadaal noogu soo noqdaan anna adinkaan gadaal idinkugu soo noqonaya intaan kuwa kale aan aadi lahaa because anaad in necabtihiin u geeya caawa dinisha waxbaa dhihin naagtaan waa necab haddaad i necabtahay kun goor anaa ku necab adikaan idin necbahay adigaan ku necabhay xuseen indhabuuraan nebcahay oo kursigiisi asaa u dibrisay baa nebcahay
midka kale afka guduudan baa nabcay kulligiin saad meesha wada joogtaan oo dhan ba wada idin raaca because adinkaba nama jeclidin dagaal intaasaan dagaal galaya ninka aniga ii hiliye nin sinaantaada diidaa la yidhi adna diid sarayntiisa adeer caqli haddaad adinka aad qabtaanna dadku dad baa caqli u qaba uguna jira baraha bulshada kuwa cidaydaan sheegaya cideeday uga soo hormartaa dadka yes adinkan idinkuga soo hormaraya haddaanan anigu adinka inta idin filtareeyo saa qashinka iyo lufada atiin aanan banaanka idinku daadin wallaahi baana midka daarud ama midka wiya aanan aadaynin ilaa adinka dirta dhexdeeda la sheegaya aan saa idin kala shaandheeyo oo qashinkiina iyo lufadiina aan banaanka aan u daadiyo ilaahayna wuxuu iiga sarreeya haddaan caawa xildhibaanad aan lahaa ama waa dhiman lahaa ama kuwa badan oo adinkaasaan dhankad ugu wadaa banaanka idin dhigi lahaa ilaahu weel iyo walaalba aan ku waaya iimaanka ilaahu iga qaad qof yaqaana lagu dhaartay inta ciidan idin subsado oo surwaal dabagaaba idiin gashto baan habeen walba guryihiina u daadan lahaa saan ciiga idinku dhegi lahaa daaraadna fariisaan dhiilaa wiyana fariiso raxaweyna fariistaan dhiilaa kuwaygaan baan edbinayaa kuwa kale say tusaale ugu noqdaan ay usoo qabtaan baan anigu idinku samayn lahaa laakiin markaan isha farta ka geliyey oo aan arkay tuuga keliya meesha inay joogto cidaydana aana koob biya aana u dari karin banaankaan ka istaagay laakiin cayaar waa noo gelin dambe saaka doorasho qof iyo cod baa la aadayahay goobaha aad ka soo geli lahaydeen baan rabaa anigu subaxa saakee odaga adeerkayna waxaan ku leeyahay wiilkaagii baa ooyaya oo gaajoon gabadhaadii baa gaajoon magaalada muqdisho joogtay ismeel ay ka shaqaysana ay weysay sadaqa sokeeya dhaaftana waa sooma noqoto wallaahi baan xataa lagu aqbalaynin waryaa markaasaa waxaa leedahay waa in la soo celiya gabar baa madaxtooyada dhexdeeda ku dhashay waa irir aad kuwaas ku jirtaa irirnima hadday jirta waryaa ninkii adeer ninkii candadayda ka cishoo waayey ee madaxtooyada dhexdeeda igu fooliyey hadduu irirnimo iiga naxaya muxuu gabarnimo iiga cishoo waay wallaahi buusan beesha jareer weyne wiil ah xataa uusa suubiyan xataa ka reer xamar inuusa suubiyan bal qabaa'ilada kale iska badaabi damiir iyo dadnimo uu ku suubiyana inuusan ahaadin markaasaa lagu yidhi gabadhaadii ku dhasha ka warnaa lagu yidhi madaxtooyada maya nimanka irira ilay adeer af soomaali xumada iska daa adeerkay waa tahay af soomaali xumada iska daa waxaana waa wax recording ah waxa la iiga kaa soo duubay oo la iiga kaa soo diray adeer waa wax recording ah anigu beanbeen dadka wallaahi inaana ku maagin oo bilaahi inaana ku maagin inaad jib inta nimanku geliyeen aad ku shaqo tagtid jib wiilkaagu inta ku geliye aad ku shaqo tagtid oo shaqa aad ugu doontid baa kuu dadnimo dhaantay haddaan anigu meel istaagayana anigaa dadkayga wax la goosan lahaa shanta lixda qofood ee maanta caawa xildhibaanada iyo ana kuwa waaba cusub iyadoo shalayba yimaadeen iska daa wax allaale iyo waxay galaan kuwii hore ii jooga wax allaale iyo waxay galaan lama arag adna sidii oo kalaatee adeer meel inta fariisatid oo dabada dhulka dhigtid baan ku yidhi george waxaad wadid maxaa soo haray baarlamaan kale saleebaanow kaala ku haya saleebaan waa joogayaa wallaahi baydna butullu intaan leegna ina ka qaadi karin butullu intaan leeg inayna ka qaadi karin baarlamaan hadduu dad la xisaabtamayo xasan waa ka ordaya xasan buldaa xasan buldaa waa ka ordaya oo carabta tegaya safiiradiina cayrsanaya la xisaabtama muxuu qaatay muxuu ka cunay dowladaha shisheeye muxuu u diidayaa wasiirka arrimaha dibadda maxaa gabdhihiisa daba ordiyey maxaa safiirada iyo gabdhaha uu wado asaga eeladiisa isku diray kuwaas maa la xisaabsantaan maase la xisaabtan hadduu baarlamaanba uu jira fawaaxish yahay ilaahayna aan aqooninin aqusnaasiinta ah waa aadan garam waa mid cajiin shiidi jiray iyo mid macallin dugsi ahaan jiray iyo mid baraf suuq ku gadi jiray waxaasaa lagu leey waa haykal dowladeed markaasaa ilaahay baan ku dhaarta markaan kalkaa margiyada ama laygu dhifta hoogaya qarankayagii quruxda badnaamee hadaya qarankayagii quruxda badnaamee baa ilada waxaa markaan arko waxaa dhex taagan sabax kastay habeen kastay waxay isku dilaan doorasho qof iyo codayaa la aadina doorasho dadbanaa la aado way la socotaa adeer bal toobigaygii aan barbar uga haadin adeer intaa dad kale waxay u raadinaysa kuwa hoostaada jooga yaa haddii lacag lagu soo siiyo adeer meeshaanu lacag kama shaqayso kamana shaqaynayso baarlamaanna mooryaan weeye kulligood waxay wada ahaayeen dariiqa isbaaray wada dhigan jireen waa mid barafgada waa mid cajiin shiida waa mid macallin dugsi ahaa waa mid mooryaan ahaayoo bannaan taagnaa aawa baarlamaanku sharafta war ha isku tegin saleebaana waa isku tegin nin dira hadduu joogana cajin shiida kolay ku tahay cajin shiide kolay ku tahana daadi
والله او بالله او تالله إن إلهي إنه وحكا قادة موجود كا قادة سيسجرن أما إيشان إن دبر قدالا كريحو أما ميد كعمو صالح السقيف دبض الضباع كريحو أما كو حل إبانا ضد الضباع كريحانه هذا الفتاة دونتين قرن الفتاة دونتين قرن كرسي قعدا إسكاله بدل أبارا وقفر لذا هيا haddaad ragga la xisaabtamaysaan oo cad aad cunaysaan cadka hilibka garabka laga cunaa nabiga calayhi salaatu wasalaam garabka ugu jeclay garabka la cunaa haddii kalena madaxa iyo caloosha iyo madaxa iyo laguma faalano najaasiyay aan dowladnimada iyo haykalkeeda iyo macneeda aqoono wada fadlan ku shubada wada ya baarlamaanka imo baarlamaanka ma la xisaabmashinka yaa lama la keeno ra-iisul wasaarihii رئيسل وزراء لها قري على صندوق كانوا كم سكر أنا جوارد كا وأدعينا وارد كان حمسو وارد كاتشنا دي الله كورابي أو واردين ترى بنا الله أون حريسته ويلا سمعت السوشيال ميديا كتيرة إيه قبل السوشيال ميديا كتيرة واردين ترى الله أون حريسته أدونا وارد كا الله أون حريسته لو دين ما يحمسو أنت هتكرسي الصوماليات أتكفر إذا اللي دين بيو والله بان كنت نعطي كي أديك كاوري أنا قد بيحيق كوا أنا إهلا ذي ده أو أنا أما أبتجي هتنلو أما عبر يرتي هتن شدة إلى هم كسر السياسة ده إسكويسنا صبح وكرسي جالس كده جانا واكاريا كوا أنت إذا حتى كرسي جالس كده جانا واكارا ما قلني ما صيد دبقة ما صيد ميجرا لكن كرسي جالس أنت يفقيان أنا ولا بده حنيودا كنت جا رب أنا كده جينا ما أروى أنت السوشيال ميديا كجرت كل جينا معهم مركان راب لا دين واي هدي قبيلة دد واحد كنت دينا يراب لا كنت دين لا كنت دين واي عادك ميا كنت دينا يا ولا كنت دين بيه بس متين وارد كان الله أن حريسته هو يلا يا أبا الله أن حريسته قولي أخلاق له أو عرنك سوماليات ساس وقعنين وجرو قربين وأسرية قولي أهبان كسو وذا كرني قولي أخلاق يسمى كسو وذا كرني لكن دولة دي بتفشل كتاي فشل إيه فعشروا أكتاجن تاي حمسو وحبا ضدكا كنا قاعدين وحبا قطبط بيانا هالشيقن والله بان كنا ارتفضا افقي مدح كلي باكو كادي الدولة دا يا بخاري او قبلها السيل كوضر نالا يساعو الضعوضة فرتقالي تشوك وحاريه ناك نالا يسوي قد ما يسان أرك قبلها سيقول ريسي فلا قبركو أموشي حسن بلداء وحا اقول ريسي قبركو اقتصاب اقول ريسي فلا كو كادي أنا روح كستنا هلكا انتو تشوكا معارض ولقينا واشيك الله ما بقينا المعارض حق تشرع أوفقادي بدا كورا وقدام بيست نحفة ديانا ولقي قف كنا كحيقوكم الدينين كنا كل قصة الدينين والله بان كنا كان أنا قلت لا عاو أدوية إلهو إيقا قاد إنا نبين أنا شيقينا هدو عاو كنت الدولة ده بدبان انت قاتل مدح السويت شبني لها أدوك حقيت شوكتان إيماجين حقيت شوكتان ورياض ما تشاسي ولا كذا هورانو عدام من ناجي الضمانة تشكوضاو حقيت جوكتان كان أنا قلت له على شيء ذاك الصبح والله هدان مضح عيني وبالله هدان مضح عيني إنا نسينا وحد لي أرض هذا رضا يعد هذاك الظهر كان أنا قلت له هدوية هذا الفريسان بلا أي وي وضلا حقيقة يعني حقيقة ليش مسكين كرسي عنكم مثليه كان صومالي يدو قاتشون بسيطة مرحبات كتاب جامع أنا قعدت أتصارتي ومد الصومالية وإني كوسناتا والله وانا عاو متقارا انا لا حج عليستين لكن تيسا الدريال طيده مركا دريالو با تكلنا اسو جيسن كرا انا سياسيين طيده انت توجيان كوري رجوده iyo dumarkooda ana saa u lisan wa idinka ka sinna wallahi inaan bartaan ana ka dhaqaaqin waa waxay yiraahdaa meeshay u faaftagi lahayd dadka kale anaga inagu soo adinkaan idinku foofayaa yiro way tuugaatihin musqula waxaan ahayn inaad buuxisaan uma joogtaan iyo business inaad ka furataan magaalada Muqdisho أنا محال هاي وبابا أيا هذه كورنا وين مت أنا عاومت كتش على كوجرت يا أنت دنتن تيدا وضع ويا دنتن تيدا وضع أو أرى عاوية أوكي شعب كصوماليات عاو وحنا هالكا وفدين إنرتجي سجب بحرية إنه عاو عرف جوجا إيوي صوماليات هدو دولة دجان كعتها جوجا إيوي وحنا قصة ما يدري وإتابنا يساب because وديكيجا وين soomaalinimada igu weyn dowladnimada igu weyn dadnimada igu weyn qofka kuwaalti galan ina raaca igu weyn ma raaco aan weligeyn inta ma dhilifa ma raacin xoolana kama qaadan mana weydiisanayo uma bako
إلهي بان كم مجن قلا حالا يتين ولاد هاي أو إلما مساكين ولاين إنا معنا إلهي بان كم مجن قلا ربك قال الرحمن كأ قالك إنا أشقيه إذا إنا أشقيه ويلاش أوان كوا دربية تيفا هبين إلهي كان على كأنت إيجا سوى أويه كوا حبسية كتير وضمنا أنا جا أنشبنه يا كان من نك سن يلا تنك سن أنت كفدي وحو يسوس أيدنا أي سجن أو ما أنت اللي را دار شقف يقعد على الجلا على شو هو الكسولة ذا حمرت الله هذا الناس صوتها سوق رأس يضرب سا أنت سوق رأس على كيسري أونلاين أو ذي تقمت كوفية بعلا أو أنت كوفي يسوس صوتها إلى أنا هدربان إمد هدربان إمد وعي كله وعقل جوا ككورو مرحلة ده أن كتيرنا ككورو عيال المساكين بتاج كودي أي بيلقوا كربية قد دراسة تطبيق حرنت إربارك تطبيق حرنت أيضا كتطبيق حريين كنت أنا رأي السوق اللي على الإمارات إيه أيها سود الجلية أفكي كل مرة بي أنا نقول الدين يا كذا أنت نقول ماذا لا دولة واش قيس وعي ساقبت والله تو أن أديك أن إني سجرين أو بالله إني سجرين شباب أبيس يو يدسم كل هذا في اللقو قاعدية إذا ما ذكواري ريسوي حسن بلداء إيه أفرت الدبت شوكتا إذا كدبت شوكتا ورأنو ورمالي والبطوكس أنا كم تشري كرنو وبيان هايسنا أو بيران هايسنا أو حوران هايسنا أو شدال بار هايسنا ورأنولان إيه من نولان هايسان مدول بأفر سرين أو عنتينا أو بريدا مارا ينبو كدبت شوكيا عقرم بيسن ويحيحي ويل بيسن كي كفا ودمرين هو يوم مساكين يسن ودمرين قبر أو يسن ودمرين وسارد دي واحد برشلة وعرتي وحي كتاقنا هاي كل قدوة وذا كربشن إيه فضلا كشبو قلت كينا يقولي إنه محايرة ضاي آوي كي توباس آوي تكرر اللي تشوقه ميه آوي حقول آذي آوي عيال المساكينة أو هو يقدر أنت قد السوق فإذا وحلا لي وحيسي سئي ويسي ما إسكولك الجيسي صبح الدنبر على الباب كان لقى حرته آوي الدولة نمضوا آوي دولة نمضوا ووحو عنو قاسيلية أو إلا قوشة قيال ربع شورتنا وعد قادة تانا آوي نتاسيي وذا ملحق قافير قالوه حارانتا فواحشينتا أو هبانكي حارانتا قبلا كفورة وذا دوليينتا وذا آوي حابروا وأرديان بلرنف قال مذكو أرد يلا قادني بدلا وحي قجرت يلا ولا آذي الدورشان آذينا قال مذكو نسال وذا جبنا الدورشان وذا قليل أو والله كفر قلب دورشة قليسة كس ما يمدك تجوا كفر دورشة قليا أفر من بيورتاجن مركزا أفر تنين يورتاجن قريودي الموت بس يقولنا ورآوي وضنك ووضلنا آوي فكت بانك أي وضكي هدان تقصون بعطالة جبوتي لقا كيني دad kaa lagu dilaya waa la siinaya waa in cajalad lagaa duubaa aaway dowladnimadu aaway soomaalinimadu aaway dalka waa la wada leeyahay hooyada ooyaysa albaabka wasaaradda waxbarashada horteeda ku ooyaysa dowladnimada leh fiqi markaasuu inta ciidayaal keenay buu yiri waa in sanduuqaas la iska adeer doorashaa loo dareeraya sanduuqyaa doorasho saa loo dhigaya galmudug baad ku fashilantay oo weliba ninkii waxaad ayd al-shabaab aniga xabadaha iigu dhiibay tuugayay aruurta wada munaafiqiinta war aawa gurigaagii ma nabad qabaa buntland waa inay daysa buntland doorashay aadaysa indhaha iyagaa ku dogsanaya oo naftayadaa ku dogsanaysa annagoo dhan baa ku wada dirsanayna buntland caaw siciidani annagoo dhan baa ku wada dirsanayna kuwa intay soo waceen siciidani farmaajo dhabar jabiye waa rag iyo xeeladeed in la isdhabar jabiye waa rag iyo xeeladeed dowladnimadaa ah ninba meel inuu ka galo kuwaa tiirka la geyn jiray maxamed saad bare markuu joogay waa xeeladeeda iyo siyaasadeeda markay kula marto adikuba kuwaad layseen gabdhaa idinkugu dhalay haye siciidani haddii shalay uu suubiyey ibni aadam weeye waa la qaldami karaa ilaahayna waa toobad buu weydiisan karaa shacabka puntland uu dambi ka galay iyo shacabka soomaaliyeed oo dhanna wuxuu dhihi karaa iyo cafi ilaahayna waa qafuur raxiim waana shaduudulciqaab adinka yaa idinka cafinaya xoolaha aad cunteen xoolaha aad xajajka ku aadaysaan yaa idinka cafinaya xoolaha aad xarabka ku istaagaysaan yaa idinka cafinaya xoolaha aad liqdan yaa idinka cafinaya maalinta yowm alqiyaame wallaahi baanan idin cafinin oo bilaahi baanaan idin cafinin haddaan qarannimo soomaaliyeed aan wax ku leenahay ama dowladnimada annaga aan wax ku leenahay wada tuugooyin baa tihiin ilaahay qiyaamaya oo shacabka qiyaamaya oo nacaladu ay ku soo degtay baad wada tihiin war doorasho aan aadno
نول بعرف كي ساق هذا لما أقوله وأن نولادها النولان وأن بنت حدمن عيالك يركا بتاتكها oo jaamacadaha lacagta kala baxayo guryahooda ka biilaya baaliyooryaada haye dhaqaajiya keena A iyo B ilmihiisaa loo xiraya odaga xasan buldaa gabadhiisii baa ordaysa tii tu kalaa ordaysa xaggee loo ordayaa xaggee qaranka loo wiilkiisii baa meel taagan kuwa adeerka u ahaa baa meel taagan kuwa abtiga u ahaa baa taagan islaantiisii baa taagan kuwa kalena maxaad moodaan marka kuwa kale ee wasiirada ana maxaad moodaan iyo kuwa madaxtooya ku hareeraysan leeyahay imagine maxaad moodaan waa certificate oo naga soo gaartay Ismaaciil Baranbaro musiibo alla ku keen ilaahay baan ku baryay wuxuu yiri ninkii wuxuu na baray baa ka way maalintii carta inta la tagayna maalintii inta carta la tagay ee la fariistay kuwii cartana geeyay ilaahay baan ka baryay inuu ilaahay cadaabta meesha ugu hoosaysa geeyo hadday dhinteedna qabriga inuu ilaahay ku cadaabo maalintii Ismaaciil Baranbarana loo geeyay hog iyo ba noogama horeyn waddankayagu necab yahay qarankayagu necab yahay calankayagu necab yahay shacbi Soomaaliyeed oo dhan buu necab yahay markaasuu xasan bildaabi wata suule warqadaada geli waa safaadiya geli kuwa badan baa waxay yidhahdaan adeerkaad maxaa ku dira adeerkay ma aha ninka qaranka adeerkay nin xalaal cunay oo maskiina buu ahaa adeerkay xalaal nin cunay oo wallaahi iyo bilaahi ka aabay ka adeeraday ka kuwa xataa aabay la dhashay wallaahi baa hal nin oo saagaaskiisa xaaraan u geliya xataa isa ku jirin xoolana alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddii maal adduunyaba uu qiimo leh caawa anaa ugu yar anna intaan haystaa iga badan aawe markaasaa le waryaa gal adeerkaa weeye intuu noo qabta muxuu qabtay 25 sano qof baarlamaan ku jira wasiir ah oo aan weligiis iyo liis dhacaynu kana meel ay dhistana lama yaqaano habar wuxuu kana balbalka saa u tuuray soo aniga u yar waxay qabata lama yaqaan wax allaale iyo waxay qabata lama yaqaan cid la xisaabtamaysa ma jir markaasaa waxaa leeyahay Saleebaano baarlamaanka iska soo xadir aadan garam oo tuug duuflaal ah kaala yule adiga yaa ku xisaabinaya adiga canda ku sakaar weyn dafariyo labada qanjoodo shambaygalo yaa ku xisaabinaya adiga mooshinka hortaada yaala ee xasan laga keenay ee isla xisaabtanka ma qaatay Djibouti baa 2,000 extra ay siisay Imaaraat inaanan idin ogayn ma moodin aw baarlamaanku ciyaar suuqinta oo fawaaxista ah ma jaastooda isku timid oo wada daamanka ku aagaamada weyn adeer doorashaan rabnaa ma rabna tuug duuflaal ama rabno ma rabna xasan buldaa xasan buldaa ma rabno buldaa waxaa in war odag muxuu sheegay bal ma ingiriiskiisa xataa ku waxay ما إنجليز كيس حتى أنا كجبوت الشوكة نبكي صورة بقى سولي عربي قولنا قاعدة دي أنا كجبوت كوي مدبوان قاعدة قاعدة سو بلدا كان بل بلدا مالجي عضو بلدا ما عبرتها وسع بلدا بحيتها بالبلدا نوف الصير في لكو كادي كوي شوكة فاربوتين كايو وجه قد أمد على إلهي إني كسر دكتور بلدا نوف الصير محيط بلدا أضيق وينها بلدا محيط هاي بروتوكول مالي oo nidaam male oo wax walba uu dawladda ka qaadanay wuxuu rabaa asaga jeebkiisa inuu ku shubo asaga ilmihiisu kaliya isla ogaadaan waxaanu xaq darray kugu tahay male oo agoon baa wax kule ma oga wadanka waa saxiixaya waa iga beec war iska tag wacdalaadan dalkaan carabuna aysan qabanaynin intuu ruux Soomaali ah u nool yahay dalaaya alla idii keenin habrii saaka waa wada orden kalolof abar walba waa orod budlaan ku dayanina budlaan waa lagu dayanaya waana la raacaya doorasho qof iyo adag caawa Siciidani hadduu soo baxo wallaahi baan ku dhaartay waa la shaqaynaya hadduu Asad Diyaano soo baxo waa la shaqaynaya hadduu mid kale soo baxo waa la shaqaynaya kulligood because ayayaanu ay laan dheer dhalay waliba laba goor baan u ahay hal mar kaliya ma aan laba baan u ahay marna ayaga dhan anaa wada dhaldhalay anigoo sirro abaa wada dhaldhala iyagoo dhan xagga iyo xagga haddii loo dhaaf xagga iyo xagga markii dambirada laga soo dega ma fahamteen kii soo baxaa la shaqaynaya laakiin Siciidani saaka waa ku dhiirigelinaya geesinimada iyo go'aanka adag ee 4 nin ee daamanka wada dhagaxa wada mooryaanta ah ay qaado wayn inuu qaato waa kugu faraxsanay waana kugu taageernay horow soco
روسعها صنقن جاس دلي باتاي libaaxa waxaad tahay soomaaliya usoo baxay baad tahay ha طلب على بلا تاغنانيا ninkii aniga qarannimo bilig intay iiga tiraado cad qarannimo uu iiga soo carfo waa raacaya kan aniga ila dhisa adduunyo iiga soo urta laaluush iyo corruption iyo adduunyo inuu bixinayana waa caysanaya waxba igama gelin aawe kuwii marka ciddayda maxay idin da'aya waryaada qaado xafadii laga xukumo geeya oo youtube-kayga subscribe-ka iyo saara oo barnaamijka falowga iyo saara halkaan dad badan baa la tuujinayaa saara طبعا لا سعطا meeshaan waxaa la rabaa qaranka inuu xasilo ciyaalaha xirxiran ee caalamka ku xirxiran in la soo daayo ugaan dhow waa la wada jiifa markaasi waxay leeyihiin Soomaaliya aysan nabad noqon markaasaa waxaa la igu soo aadinaya midba midka uu ka xun yahay habarta ay ka xun tahay ilaahu adaan ashkata kaaga nahay naga qaba rabbiga raxmaanka ayo adaan waxba ku seegarayna ilaahu ummaddu waa kala cayriya oo waana dhibeen oo dawlad uma shaqeeyaan oo shacab masaakiin uma shaqeeyaan ilaahu ashkataan kaaga nahay gacmaha adaan ma had iyo cisho ku warsanay ilaahu naga soo afjar kuwaan سكر يدي كري وذا قبل dhiikar iyo sakor wada dhint habar dambo ilmeedi inta guriga ku dhex korsatay waa la diiday waxaan idin leeyahay dhammaantiin isku duwan siciid gariya guriga gabadhibo ayay halkaa ka wad baxaysa halkaa ka wad waa kula jiraa nimanka hogaamiye kooxeedka oo xamar joogow yaa oo siciidani baa shirka ka baaqdanow doorasho qof iyo codogeliya dalka waa diidnay doorasho dadban waa la diiday caqli wa sharcan salaamullaahi calaykum